Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Muuqaalkeena waxaan ku sharaxaynaa insha allah ama waa ku macnaha aan ugu hambaliyaynaynaa walaalaha kusoo guuleystay imtixaanka xeerarka wadada. Insha allah sida normaalka ama caadada waxa inooga barateen in cashiro ku saabsan shuruucda inaan soo gelino. Maanta cashiradii aan bixinaynay dadkii kusoo guuleystay walaalaha kusoo guuleystay aan u hambaliyeyno iyadoo video ah ama muuqaal ah aan wareysano inkastoo ardayo badan kontameeyo gaaraysa ay soo guuleysteen. Maanta waxaan jeclaysanay in aan ardayda bal wareysano ama aan si online ah aan ugu hambaliyeyno insha allah. Si toos ah waxay ugu jiraan ardayda ama walaalaha khadka telefonka insha allah tacaala. Waa laba walaalood lagu magacaabo Cali iyo Saacadiya waana reer Netherland insha allah tacaala. Haddii aan fiirino ugu horeyn natiijada ay soo qaadeen ama qaabka ay usoo guuleysteen ku bilaaban insha allah tacaala. Warqadda natiijada ee walaalkeen Cali oo ka mid ah walaalaha reer Netherland gaar ahaan magaalada Alkmaar warqaddu kusoo guuleystay ee ku qoran tahay Geslaagd ama waa soo guuleystay tahay waatan maasha allah afarta qodoboodba ama saddexda qodoboodba wuxuu ka keenay natiijo wanaagsan maasha allah. waxaan leenahay Cali hambaliyo iyo mabruuk ayaan ku leenahay alfa mabruuk. waxaan ku rajaynayaa qaybta labaad ama wejiga labaad oo ah yacni practicalka inaa ilaahay kuu fududeeyo aana kusoo guuleysatay insha allah. qaybtii ahayd wejiga koowaad ama qaybtii koowaad waa kusoo guuleysatay ilaah wuu kusoo saqiray. haddana waxaan ku leenahay insha allah qaybta ku harsan ilaahay ha kuusoo saqiro insha allah tacaala. waxaa ku xigta warqadda natiijada ee walaashan Saacadiya oo iyadana sidoo kaleeta ah reer Netherland ama walaalaha nagala soo biiray Netherland insha allah gaar ahaan magaalada loo yaqaano Kaatsheuvel ama Kaatsheuvel sida Soomaalida dhahdo ama magaalada loo yaqaano Eftelinka meel waxay leedahay sida park oo kaleeta oo caan ah oo loo yaqaano Eftelin ayna degan tahay insha allah. Saacadiya waxaa ku leenahay aniga iyo walaalaha ku daawan doonaba mabruuk insha allah alfa mabruuk hambalyo. wejiga koowaad ama facekii koowaad oo ahaa barashada baabuur wadista waad kusoo guuleysatay. waxaan ku rajaynaynaa insha allah gaar ahaan macallin ahaan aniga in wejiga labaad oo ku harsan inuu ilaahay kusoo saqiro sida ugu dhaqsiga badan macnaha uguna macquulsan insha allah tacaala. waxaa halkaasi inoogu ekaa natiijooyinka walaalkeena Cali iyo walaasheen Saacadiya oo ah walaalaha reer Netherland insha allah tacaala. waxaan su-aasha ugu hore aan weydiinayaa insha allah walaalaheeya maadaama aan cashiro soo wada qaadanay in badan cashiro aan qaadanay isku day inaan idinka faa'iideeyo idinka caawiyo ama idin sharaxo. waxaa su-aasha aad weydiinaya waxay tahay maadaama cashirada aad qaadateen imtixaankiina aad aadeen cashiradii aad qaadateen boqolkiiba meeqa ayaa ka faa'iideen ama aad ku soo aragteen su-aalaha imtixaanka ama xarunta imtixaanka lagu galo. hal su-aal ama laba su-aal idinkoo ka dhiibanaya insha allah tacaala. sidoo kale ma adkaayeen oo macnaha mise way fududaayeen taasi waa kow. haddii aan ku bilaabo Cali maxaa ka leedahay insha allah adoo codkaada dheereynaya insha allah tacaala. macallin horta hambalyadaadaba kaa gudbo aad u mahadsan tahay. macallin horta marka horta barashada oo aan ka bilaabo isheeg waxbarashadeeda oo theory-ga horta run ahaantii horta qofka kow indhaha ii furay waa adiga. horta theory-ga hal mar baa jirtay aan mataqaanaa intaan galay cabdirasaaq kale oo wax degan Alkmaar sabti axad oo dhahay hal mar waa sabti axada qaadanaysaan Geslaagd hal mar kaas hal mar galay halkii marna ay socon weysay markaasaan ugu horeysay uguna dambeysay kadib dib dambe umaana fiirin markii dambena
walaalkeyga ninka la yiraahdo mahad igu soo dhiirigeliyey oo yiri macalin cabdirasaaq jiro oo dadka online wax ku baro oo Skype-ka ah marka sidii aan kusoo biiray kadibna waxaan sameeyey dadaal dheeraadaan sameeyey macalinkana waxyaalaha aan ka faa'iido waxyaalaha waxaa kamid ah waxyaalo badan intaad lagu soo koobi karin fooranka kamid ah marka waxyaalaha 70% casharka mataqaanaa examinkan way ugu wada imaaday 70% macalinkan 70% waan ka faa'iiday 30 kamid ahna aniga yani extra ku darsaday waxay tahay sheeg macalinka su'aalaha badan aan weydiinay ee iga soo baxday imtixaamaadka meesha ku imaadan badana yani badankiisa meesha kugu imaanaya laakiin waxaa jira marar qaarkood waxyaalaha meesha aan aad filan ugu keenay taasna waxyaalaha loo adeegsadan waxay tahay adiga maskaxiyan haddii aad theory si fiican u soo diyaarisay wax walba oo caqabad walba ka hor timaado waa ka gudbi kartaa kaliya haddii mataqaanaa luqadda xoogaa ku adag tahay oo qoraalab iyo su'aal iska daba dhigo kale kaas kale caqabad kugu noqon kartaa laakiin waxyaalaha kale oo fooranka iyo waxyaalaha boorarka iyo kulli yani meesha kugu imaado waa khaslaqto ku soo guuleysanaysa insha Allah su'aasha meesha ugu baxay tan kale oo mataqaanaa walaalahayga oo hadda wax barto oo macalin cabdirasaaq oo hadda ayagana weli oo dadaalkaas iyo juhdiga ku jiro waxaan ku dhiirigelinayaa in mataqaanaa casharka akhrin badan dhegeysi badan intaba ay sameeyaan kadibna markay casharka ay qaataan waxaan dhihi lahaa marka ugu dambeysa aad geleysaan hal cashar oo hal isbuuc intay gataan kadib markaas macalinkana hadda kor uu nagu dhiirigeliyo wuxuu dhahay markaad imtixaanka geleysaan ka hor cashar gata kadibna markaas toos u aada sidii aan aniga sameeyey alxamdulillah waan ku soo guuleystay ma sha Allah waan maasay alxamdulillah insha Allah adiga mudan Saadiya waa tookadaada insha Allah Saadiya معلم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته معلم mahadsanid hambalyada إن شاء الله ay maxaa la dhahay horta maasha Allah aad iyo aad u mahadsan tahay ilaahan mahad iska leh adiga mudan kasafoo adiga wallahi maasha Allah horta theory-ga sida adi igu bartay oo igu bilowday waxay ahayd wax laga sheekay karin yani aniga aad oo dib igu ahaa waa ogeed akhrinta fahamka Nederlandka si fiican idoo saas ay tahay laakiin waa inuu soo dadaashay dadka oo groupka isla ahaan kulligood wada qaateen ani waa iska dhaaf waa tii ogeetaan iska dhaafay waqti badan yani faraha ba ka qaaday si fiican laakiin gadaal dambe haddana aan soo hurdada ka soo kacay yani ina oo soo qaadale bis theory-ga aan barto xooga saaray insha Allah laantaada ma sameeyay waa ku soo raadiyay maasha Allah ilaahay khayr ku siiyo wax badan ka faa'iiday amiin wax badan ka faa'iiday ana theory meel laga gal meel loogu baxo ma ka siinin adaa aad iyo aad ii faa'iidaysay maasha Allah 90% maasha Allah alxamdulillah oo waxaan kaloo dhihi lahay ardayda oo hadda oo dhigtaan oo wax aad bartid yani casharada aasiista inay dadaalaan saacada oo la dadaalo yani ikan inay kor u qaadaan yani ay bartaan ay fahmaan ay ku dhageystaan ay xoogana saaraan macallin hadda oo cashir bixinayo in dadka oo si fiican u dhageystaan ma hayno si fiican المهم waxaan kaloo ii lahay intaas oo kusoo gabagabeeyo insha Allah macallin dadka ha dadaalaan insha Allah waa mahadsan tahay Saadiya iyo Cali waa mahadsantii labadiina insha Allah taala waxaa halkaasi uga jawaabteen laba su'aalood su'aal ah imtixaamaadka aad soo macna aragteen iyo casharada idin siiyay mis lahaayeen iyo imisa percentage ama meeqa boqolkiiba meeqa aad macnaha aydin baray taas waa ka jawaabteen tan kale waxaa ka jawaabteen ardayda maxaad ku macnaha dhiirigelinaysaan taana waa ka jawaabteen insha Allah su'aasha ugu dambeysa waxay tahay aydin weydiin doona insha Allah wax caqabada iyo wax macna dib u haween ah oo aniga xaggayga ah oo aad igu kordhinaysaan tala ahaan ma jiraan wallahi
tala ahaan waxaa layn ku dhihi lahay macalin saa hadda sameynoosid le inaa ugu wadid waqtiyaalka aad siinaysid waxaaga bis hadduu internetkaaga okay yahay saas camal insha allah tacaala cali adigani macna horta aniga tala ahaan waxaa meesha dhihi lahaa horta hadda ka horna waa tii aniga aan soo jeediyey mataqaanaa in casharka maalina la qaato maalina wax la iska weydiiyo si fiican taas iyadoo jirto haddana waxaan kaloo ku kordhin lahaa yacni casharka qofka mataqaanaa inuu fahmay iyo in kale in si fiican loo xaqiijiyo qofka aan waxba fahmin dadka qaybtooda waxaa jira dad xoogaa xishooda meesha ku jira aan ka dareemay oo mataqaanaa exactly oo ayagoo fahmin macquula in la dul maro oo ka bacdina ayagoo ka baqaayo mataqaanaa adiga keliya maxaa caqabad kaa dhigo kale si taas fiican waxaan dhihi lahaa in exactly ardayda aad ku dhiirigelisa aad dhahdid wax xishood yaysan jirin waxaa samaysan qofkii aan waxba fahmin waxba hal xaba dhaaftay ha yiraahdo yani hataa ha qodobeysto midda kale ardayda waxaan ku kordhin lahaa yani markaa casharka aad sharaxaysid aad duubaysid waxaan dhihi lahaa casharka oo weydiinaysid kasta dib aa weydiin rabtid yani nambarka hataa calaamadaysa maadaama hataa aad qori karaysa dhan nambarka markaas lama maraa meeshuu soo qoraa nambar hebel macalin ma fahmin igu soo celi hadho aniga waa samayn jiray saas waa saas marka ma jirtaa nambarada saas faahfaahinta hala ma sameeyo ha waxa ha laga weydiin maasha allah marka ha qortaan ha ku weydiiyaan haddaysan fahamsaneen ayaga sidaas in yani aad u gudbisid aad tiraadid waxaad fahmin waxaa samaysaan nambarka aan markaas maraayo calaamadeeso hadhoodii markii casharka aan dhameeyo waxaad tirahdaa nambar hebel macalin ma fahmin igu soo celi hadho si fiican because way dhacdaa anaa arkay si fiican yani waa fikir mararka fiican qaarkooda waadna mararka samaysay qaarkooda adiga aniga badanaa hataa waxaan sameeyaa marka aan taas waxaan dhihi lahaa yani ardayda yani in ku baraarujisid ayaga laftirkooda exactly maya in taasaan badan kusoo ma in saa'idin badan lahaa ma in badan horta ardayda waxaa og tahay inaan ku macnaha dhiirigeliyo inay hadday wax fahmin ama eraysan fahmin hataa inay qortaan saa u sharaxay ama u fasirayna ay kusii qortaan af soomaali ahaan in badanna in su-aalaha aan lala xishoonin iyo sidoo kaleete in su-aalaha aan lala gambanin ay weydiiyaan oo aan diyaar u ahay in su-aalaha la weydiinayo inaan ka jawaabo aan jeclahay hataa aan mar walbaan dhahaa laakiin dee dadka ama walaalaha haddii aysan ayagaysan ka imaanin ayagana tirkooda dhankooda taa inaan wax ka qaban kara ilama aha sidii aan mataqaanaa aan macnaha aan ugu dhiirigelinayo unbaan aan samayn karaa iyo dheeraad hadduu ilaha idmo waana ku mahadsantihiin adiga iyo saacadiyabo macnaa fikir haye hal midaan dhihi lahaa macalin waa sax horta way jirtaa yani dad iska gambada laakiin macalin waxaan dhihi lahaa ii sheeg yani meesha mideeda kale waxaan ogaaday su-aasha wallahi inaan been ku sheegan su-aasha faa'iido badanaa ku jirta because su-aasha marka aan ku weydiiyo aad dib igu sharaxdid wallahi waxay ii gashay sidii mataqaanaa inaa xifdiya oo kale si fiican maasha qore allah maasha laakiin allah haddii ii sharaxdid aan fahmin waxaa kasii fiican markaa su-aal kaa weydiiyo ha igu soo celisidoo ii sharaxdid si fiican markaasaaba si fiican iga dhacdaaba maasha allah si fiican صح maya صح marka runtiis waa cali maya urta macali wuxuu ka mid ahaa ardayda isoo martay ardayda kuwa uga su-aalaha badan waxaa jira wiil kale iyo dabcadii arday badan waxay u badan yihiin ragay u badan yihiin badana kuwa su-aasha badan dadka saas su-aasha macnaha dadka badan oo weydiiyana waxay ka dhigan tahay in ay rabaan inay si lafdi ahaan si fiican ay u fahmaan su-aashaasi amaba waxay macnaha markaas rabaan inay bartaan sidaasaana wanaagsan hadduu ilaaha idmo maxaa kale wax kaloo su-aalay ma jiraan ama talo macna maya adiga lafkaaga yani dadka talooyinka soo jeediya ka mid ahayd anaga markaa meesha ku jirna aad tiri yani su-aalaha faa'iido badanaa ku jirto wiil hadda kor aad ka sheekeynaysa waa su-aal badnaa wuuna soo qaaday hadda kor nooga sheekeysay ha haddana waxaan dhihi lahaa dib haddana iyaga ugu celi oo ku dhiirigeli oo mataqaanaa yani exactly waxa aad exactly fahmi weyseen weydiiya waxba si fiican haygala baqina waqtina haygala xishoonina weydiiya aniga meesha waxaan u joogaa inaan wax baro intaas keliya le si fiican ha waa arrinta exactly wiilka magaciisa waa ilooway wuxuu ka mid ahaa ardayda waxaan soo baray oo sidoo kale reer Netherland ah dabcan wuxuu ka mid ahaa hataa dadka markaa ku cusub
يعني luqadda Nederlandiiska iyo waddanka Holland asagona hal sano aanan joogin ayuu ii imaaday. Marka wuxuu ka mid ahaa ardayda su'aalaha badan sidaa oo kaleeto cali. bil iyo bar ilaa iyo 2 bil ayuu cashiro qaatay si degdeg ah markii ugu horeysayna waa wiilka keliya oo markii ugu horeysay imtixaanka galana hore ka soo qaada laakiin magaciisa waa ka xumaynaa ilooway. insha Allah tacaala marka waxaa idin leeyahay waad ku mahadsantihiin sida sharafta ee mudan iyo qiimaha badan leh oo waqtigiina aa usoo horteen inaan aan igu hambaliyeeyo ana macna idinku wareysto insha Allah tacaala hadday jiraan wax su'aale labadiinaba. mahadsanid macalin insha allah mahadsan tahay waa kaaga mahad celinaynaa yani sida aanu juhdiga nagu gelisay anagana aan u dadaalnay maantana adigana guul ay kuu tahay anagana guul ay noo tahay marka insha Allah ardayda kalena waxaan u rajaynaynaa sideena si lamid ah inay ayagana guul soo gaaraan insha Allah insha Allah tacaala صح waa آمين waxaa idin leeyahay macna idinka mudan insha Allah tacaala dee ardayda ama walaalaha hadda soo qaaday ilaa iyo hadda casharada waxaa bilaabay 2000 iyo waxaan bilaabay 18 ilaa iyo 100 arday dumar iyo rag bay isugu jira way soo qaadeen hadda inta kuma soo koobi karno oo ah badankood ama intooda ama kuligoodaba ay yihiin arday ama walaalo reer Netherland ah ama kuwa degan Holland. haddeertaana walaalo kale waxaa jira oo Belgium degan oo aan ayagana baro oo ilaa hadda laakiin marka xaqiiqada ka hadlo hal arday hadda oo imtixaanka oo ani aan baray wax oo reer Belgium ah oo soo qaaday ma jiro. marka sidoo kale ani waxaan ku kordhin lahaa ardayda ama walaalaha iga barata casharada oo reer Belgium ah inay ayagana sida reer Netherland oo kaleete ay u dadaalaan inay kusoo guuleystaan imtixaanka insha Allah tacaala waana ku farxi lahayn haddii Ilaahay idmo waxaa idin leeyahay aad baa u mahadsantihiin جزاكم الله خيرا جزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.